waxaad gelisaa waqti badan hagaajinta muuqaalada ha noqoto duubista ama hagaajinta muuqaalka qurxintiisa editingkiisa waxyaabaha soo idil waqti badan aad ku bixisaa still muuqaalkaagii marka baraha bulshada soo dhigtid dad badan ma daawadaan oo ma ahaan muuqaalkii mid soo jiidasho leh laga yaabaa ciladaha hadda aan kula wadaagi doonaa muuqaalkan kugu tusi doono inaad adigana samaysid muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 5 shuruuc ay isticmaalaan dadka editorada ama creatorska ah wadooyinka ay maraan iyo waxyaabaha ay sameeyaan markay muuqaal duubayaan ama markay muuqaalkii edit garanayaan waxyaabaha ay sameeyaan si muuqaalkooda u noqdo mid soo jiidasho leh rulka ugu hore waxa weeyaan marka muuqaalka hagaajinaysid ama muuqaalka codkiisa marka jarjarayso waa inaad ka saartaa waxyaabaha sida iyo waxyaabaha spaceka aamusnaanta waxyaabaha sidoo waa inaad ka saartaa muuqaalkii si uu noqdo muuqaalkii mid soo jiidasho leh oo dadkiina ay daawan karaan inta badan dadku waxay nacab yihiin muuqaalka ay daawanaayo qofkii inuu wax yar aamuso sekanka sirka aamusti dad badan ayaad ku weynaysaa ma rabaan dadkii qof caajis ku jiro qof oo daalan balse muuqaalka duu yahay mid cashira ama tutorial ah inta badan waxa wanaagsan si degan inuu ku soo baxo muuqaalkii rulka labaad waxa weeyaan muuqaalkaaga waa in laga helaa marka la daawanaya 3D motions camera footage 2D motion graphics waa in laga helaa muuqaalkaaga si uu noqdo muuqaalka mid soo jiidasho leh waa inaad isticmaashaa 3D elements haddii aadan aqoon u lahayn waa inaad raadisaa stock footage oo muuqaala b-rolls waa inaad isticmaashaa muuqaalka u isticmaashaa si muuqaalkii uu noqdo mid soo jiidasho leh oo dadkiina ay dul istaagi karaan AI generation inta badan bariyahan dambe waxa aad loo isticmaalaa AI generation waxyaabahan oo idil aan ku soo sheegay waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid xageen ka heli karaa website lagu magacaabo Envato website-ka haddii aad geshid waxaad ka helaysaa waxyaabo badan wax waliba oo qof waliba oo content creator ama muuqaal sameeya uu u baahan yahay website-kan waa lagu dhameystiray oo everything waad ka helaysaa website-kan kaligiisa adigoon ka dhex bixin oo meel aan ka aadin ayaad wax waliba oo u baahan tahay ayaad ka helaysaa laakiin nasiib wanaag website-ka inta badan waxa weeyaan lacag weeyaan marka lacag yar oo khidmad ay dadka qaada lacagtaas aad bixin kartid waxaad awood u yeelan doontaa inaad soo saarto muuqaalo soo jiidasho leh haddii aad team isbahaysanaysan oo dad badan 2 qof 3 qof aad ku iibsanaysaan waa inta badan trick la isticmaalo rulka saddexaad waxa weeyaan base-ka ama meesha wax ku duubayso waa inay ahaataa meel aan caadi ahayn oo diyaarsan kala grading ka noqdo editing ka noqoto aad buu ku caawinaya waxa ka caawinayo setup-ka diyaarsatay ama meesha ku duubtay muuqaalka quruxda muuqaalka ay qayb qaadan doonta rulka afraad waxa weeyaan motion graphics muuqaalka waa inaad ku dabaqdaa motion graphics waxyaabaha dhaqdhaqaaqa icon-nada ha noqdaan marka laakiin muuqaalka ku soo daraysid waa inay ujeedo leedahay ama ujeedo muuqaalka ugu soo dartay waa inay jirtaa si dadka ay u fahmaan motion graphics wuxuu ka caawinaya muuqaalkii dadka inay si wacan u fahmaan inta waxa aad loogu isticmaalaa xaysiisyada storyga ama sheekada ay aad u macaaneeyaan oo sheekadii waxay ka dhigayaan mid soo jiidasho leh oo dadkii ay ku qancaan rulka shanaad waxa weeyaan sound design hagaajinta codka qurxintiisa tusaalaha waxa dhici karto in muuqaalkii aad ku duubtay meel buuq oo ka jiro oo waxyaabo dad ay buuqayaan marka muuqaalkaasi sidiisa hadii aad ku soo fasaxdo ma noqonayo mid soo jiidasho leh marka muuqaalka waa inaad ka saartaa waxyaabaha xagga dambe sawaxanka ama qaylida si codka u noqdo si fasiix mid la fahmi karo inta badan waxaan aad u isticmaalaa Adobe Enhance Adobe Premiere Pro-gana uu leeyahay CapCut-kana uu leeyahay waxa kale soo hosgalaya qurxinta codka inaad ku lifaaqdo ama ku soo dartid background music waa inaysan cilad u keenin codkii oo aysan ka dheereenin mase aysan ka saramarin codkii aad meesha kugu yaalay oo contentiga dhan ka turjumaya haddii aad ka saramariso codkii lama maqlayo muusigina codka ayuu ka saramaray inta badan qaladaadka dadku ay sameeyaan muusigta marka ku soo darsanaysid waa inaad ka dhigtaa mid laciif ah oo aan la fahmaynin oo xagga hoose haddii aad isticmaashantaas rule aan kula wadaagay aad ku dabaqdo muuqaalkaaga waxaan aaminsanahay muuqaalkaaga inuu noqon doono mid soo jiidasho leh oo wax badan iska bedelay triggan ama ruleska haddii aad isticmaashay ku dabaqdo muuqaalkaaga wuxuu noqon doonaa mid effective ah oo muuqaaladaada wax badan ka bedela haddii ay tahay markuu wareyso soo boqoto channelkii waxaan ka codsanaynaa subscribe saarto si mar waliba muuqaalada aan soo geliyo ay ku soo gaaraan